guddida nabadgelyada gobolka Sanaag ayaa kulan kula yeeshay hoolka maamulka gobolka Sanaag waayeelka iyo waxgaradka laba beelood oo hore ugu dagaalamay deegaanka Shidan ee waqooyi bari ee gobolka Sanaag waxaana cuqaasha waayeelka labada dhinac ay guddida nabadgelyada ee uu hormuudka ka yahay barasaabka gobolka Sanaag ay ka hor sheegeen inay si buuxda u qaateen nabadgelyada isla markaana ay iyagu ka wada arrinsanayaan sidii ay dadkooda ay nabad iyo islaax u kala dhexdhigi lahaayeen kadib markii ay dhowaan fashilmeen guddidii gacanta ku haysay inay labada beelood ay u kala garqaadaan waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay cuqaasha labada dhinac inta kadib maanta ay bishu tahay 2 November 2020 waxaanu isla qaadanay haddii aanu nahay beelihii qadiyada Shidan ka dhaxaysay inaanu nabad qaadano nabadda ka wada shaqeyno in badan haddii dad kale arrinta ay ku jireen dhexdayada anagu aanu ka dhameysano sidii abogaaga ahayd dhaqanka iyagu ahaan jiray iyadoo aan ciidana noo dhaxayn gogasha nabadda aanu ku wada fariisano isxashashaqno arrinta ku dhamayno si nabad ah oo gobolka iyo dalka iyo dadkaba u wanaagsan dadkii nagaga dhintay iyo kuwii nagaga dhaawacmay kuwii dhintayna Allah u naxariisto kuwii dhaawacmayna Allah u boogadhayo kuwa dambana Ilaahay waxaan ka baryayaa inaan nagaga dhiman nagaga dhaawacmin hatta nagaga sigan Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu nagu guuleeyo dadka isdhalay oo dhinac walba dhinaca kale uu dhalay ee ehelka waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu garansiyo dantooda guddida la saarayana waxaan Ilaahay uga baryaynaa in uu cadaaladda waafajiyo xaqana uu ku sugo umurtana uu fududeeyo labada reer waxaanu isla garanay inaanu gudahayaga isula noqono oo arinta Ilaahay idamkii soo dhameysano labadii beelood ee Shidan wax ku kala gaadheen ama shaqaaqadu kaga dhacday waxaanu leenahay labadii beelood baanu nahay baaq nabadeed marka hore hanala ka gudoomo Somaliland adduunweynaha meel kasto ay tahay baaq nabadeed baan siideynay mar labaadka waxaanu ku tashanay oo guddiga gobolku nala og yahay inaanu anagu hawshii ka heshiino shaydaankiina aan saarno ana isku noqono ana dhameysano dhammaan cidana daawanaysa waxaan leeyahay baaq nabadgelyaanu qaadanay waa naga xidhantay waa isku noqonayna waa dhameysanayna ku ururina soo celin ma garan waayno insha Allah taala ducada iyo maxay ahaaytay niyada wanaagsan ayaynu qaadanaynaa waxaynu soo celinaynaa ma jirto insha Allah halkaas ku dhamaanay gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan oo halkaasi uga mahadnaqay labada beelood aad iyo aad baad u mahadsantiin Ilaahay haydi ku asturo hawshaad ballan qaadeen annaguna waan dul joogaynaa marka hore guddigii hore inta waxaan islahayn ha faragelinina iyo go'aan ha keenaan laakiin maanta talada aad haysaan qof kasto arrintiina aanu arkayna caqalad inuu yahay waan idinka dhex saaraynaa Cabdirasaaq Maxamed Jaamac Sugulle codka bariga Afrika ceeriga